qasnadan iyo akoonkan hadii iyada dabicsi intana ruusa kala yaaci isaguna sadaqadii buu la qabsanaya sidoo sababkii uu la qabsaday sadaqadiina uu la qabsaday marka aad soomantay shan arrimood iswaafaj shan cibaado oo mutaraakima isa saara cilmigii oo baranayso salaadii oo aad la imanayso soonkii oo aad soomantay i'tikaaf aad ku jirto oo aad fadhido labada salaadood inta ka dhaxayso iyaduna ajri gaar ah 12 bilood hadii aynu cunaynay oo bishan la yiri sooma waa bishii la dhaqdhaqayay jirka warshadu markay muddo shaqayso de waxa la yiraahdaa laga yar layriyo halaga yar neefiyo hal xalo dib oo dhan wuxuu ka yimaadaa dharanka haddaad imika dibirto oo aad karbudho hurdada kugu badanaysa hadalkuna uu kugu badanaya ka joogi kari mayno ilaa qof dhargay uu iskala guraya uu inagu buuqaya markaas uu dhan walba u ridaya uu buuqay buuqiisa inagu badanaya hadalkiisa iyo dhacdaca iyo dhaqaqlanimada alxamdulillah wa salaamu lillahi wa salaatu wa salaam ala rasuulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa aynu soo bishii ramadaan ilaahay nabadayna u gaarsiin waa fursad ilaahay uu bixiyay oo uu nasiiyay cimrigeena iska gaaban rasuulku sidoo tilmaamay sallallahu alayhi wa sallam umadan cimrigeedu waa 60 ilaa 70 inta ka dhaxaysa marka laga jaray intii qaangaarka wax yar baaba soo haray ee waliba laga jaray intuu qofku shaqaysanayay ama hurdayda qofka waqtiyada khayrka badan iyo goobaha khayrka badan iyo cidda khayrka badan ka faa'iideysta boqolaal sano ayuu cimrigiisu u dhigbaa ka soo qaad ilaahay wuxuu waafajiyay qofkan inuu laylatul qadr 10 sano waafajiyo cimrigiisa 10 sano de sanad hal mar oo waafaqay baa waxay u dhigantaa 83 sanadood iyo bilo cimrigiisu intee oo sanadood buu hore u kacay dhinac kale rasuulku wuxuu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam qofka ku tukanaya salaada jamaca in salaadiisa ay u dhiganto ama ka badan tahayba 720 salaadood marka adigii qofkii bil tukanayay baad hal salaado aad jamaca ku tukatay ayaad la ajritay qofka gurigiisa iyo qaarkiisa ku tukanaya marka fursadaha noocaasa qofka ka faa'iideysta salaada xaramka ayuu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam inay la ajri tahay 100,000 oo salaado bal adigu qofka inta isu geegeeyay iyo kii aan madaxaba kor ugu qaadin arrimaha cimrigooda sidoo kala duwan waa dareemi karaysa bishan waa bishii quraanka shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran fadaa'ilka leedahay iyo khusuusiyaadka leedahay bishan dheeraadyada leedahay markuu ka waramayay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu sheegay bishii quraanka inay ilaahay baa soo dejiyay bishan quraanka kariimka ah quraankuna waa hibada iyo hadiyada ugu weyn ee ilaahay adoomaheena noo siiyay deeqda ugu weyn ee ilaahay uu nagu deeqay waa waxigiisa hanuunka ah in hada alquraan yahdi lillati hiya ahsan lillati hiya aqwa marka waxa halka ka arkaysa furaska ku jira bishan iyo khusuusiyaadka dheeraadka ay leedahay dheeraadyadeedu ka mid yahay bishan in arkaan islaamkii mid ka mid uu ku jiro ودايدي بابا أركان الإسلام كي صوم كي رمضان إرادية إذا واحد كم إذا هذين كاسين وكشرو ومن خصوصيات هذا الشهر خصوصيات كذا كم التهاي إن إلى هاي وسود شيء قرآن كي سكرين خصوصيات كذا أي بيشان كم التهاي إن سكات فدر الله ينعمه بيشانو لواجبية مركاي لما تو wax badan oo caynkaas ayaa bishani ay leedahay nabigu kaleey salaatu wasalaam waxa uu leeyahay man hurima khayruha faqad hurim qofka bishan khayrkeeda laga calaf gooyo waa calaf laaway
qofka ilaahay uu soo jeediyay ee uu waafajiyayna waa qof guulaystay oo horu maray dadkeenii saalixiinta ah waa wanaagsanaa aad bay ugu han weynaayeen bishan horumarkay leedahay sidaa daraaddeed markay soo socoto ilaahay bay baryayeen inuu ilaahay gaadhsiiyo sida had iyo jeer qofka loo sheego inuu ama darajo adduunye helayo ama duunye iyo xoolo helayo ama jaa'isad helayo wuxuu xiiseeyaa habeenada iyo ayaamaha tegaya marka iyaguna markay ramadaan soo socoto ma yahayn dad ka warwarsan gaajo iyo calaf iyo xoolo iyo macaash laakiin waxay mawsim lilkhayraat inay waqtigii khayrka uu yahay iyo carwadii khayrka ayay dareensanaayeen kaasay ilaahay baryayeen ilaahay inuu nabad ku gaarsiiyo markuu sii baxaysa bishana way ka warwari jireen markay ka baxda ilaahay bay baryayeen inuu ka aqbalo bishan laha fawaid culimada idin sheegi doona sheekha insha Allah idin sharxay doonee fawaid صحيه وفوائد روحيه وفوائد دينيه فايدون aad u badan bay leedahay dhinac walba leh koob iyo 10 bilood hadii aynu cunaynay oo bishan la yiri sooma waa bishii la dhaqdhaqayay jirka warshadu markay muddo shaqayso de waxa la yiraahdaa la yar layriyo ha laga yar neefiyo hal xalo oo naska iyo qiiqa iyo waxa isku dhagay dib u habeynta lagu yar sameey fursad baa la siiyaa mashiinada jirkeenu waa ka soo kale waa waqti la dhaqdhaqayo jirkeen la nadiifinay ummadaha diraasadeed waxay sheegeen isbedelka jirka ku dhaca bisha ramadaan soddonka ama 36 cisho la isku xidhiidhay macashawaan in nolol cusub uu jirka gala dhiig cusub iyo jiir cusub iyo baruur cusub khabiir yahuuda waa wuxuu baaray meydka Falastiin iyo meydka yahuuda la waa kuwan haysta ee dadka Falastiinta dhaqaatiirtooda la keenay marka qofkii soomay bisha ramadaan wuxuu waxa isbedelay shaxmigiis waxa uu soo baxday baruur yalo light oo aad u fiican ya jirkiisa uu soo baxday isbedelka dhiigiisuna waa saas oo kale marka halka waxa ka arkayaa buu farqiga u dhaxeeya qofka soomaya iyo qofka kale nimba kansar ku dhacayo bisha ramadaan uu soomay samsam kale uu caday دكتوركيسي أمريكا جوجو كل نقطة وحوارسو كان كسلكي كابحي توحول إن في بلادنا دكتورا يسمى رمضان تعاملت معه تلك يجوا واحد جوجا نختار له إلى رمضان كي بالله حريرا إلى هاي نوي وعافية دلا دكائي شرحات وحموده إن عادي يوم جعيس رمضان له فوائد روحية هي بشر الله فإذا إن هذا رمضان حق الروح ذاته إنه مهم سنة وفائدين كالروح ذا maxaa ka weyn in ay hesho laandheeranimada ugu weyn iyo gobonimada ugu weyn iyo sharafta ugu weyn waa luqadeena moogti hebel waa laandheere iyo hebel waa gob dhashay ya iyo hebel waa sharaf badan yahay intaaba ramadaan baa laga helaa leanahu cabsi ilaahay baa laga helaa ilaahay wuxuu inna akramakum inda allahi atqakum kaydin ku gobsanayeen ku laandheeraysan oo ka taqiga masdaru taqwa waa soomka يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وترجي وحلا إذن كرت شيء إن الله كعبسك صحيح قالتها قد دون إسلام ديرك قبا إلهي أكتي سنة نقطة الشرف له وقالوا تنطي كم بيت رمضان القاسة لك صحيح قالتها وحدو فهمت بيش المركز صومتو ruuxdaada shidaalka ku dhacaya iyo energy-ga tamarta ku dhacaya 12 bilood buu qaraar ku siin karaa 12 bilood ayaa hadii gaariga mashiinka loo xidho la cusboonaysiyo mashiin cusub la saaro laamida la saaro la warkiisu boodaya safarka wuxuu jarayaa masaafad aanu jaraynin markuu duuga ahaa 12 bilood helay waa inaad dhaqaaq cajiiba ku dhaqaaqdaa oo toos aad u socotaa ilaa waxa ku galay jacayl iyo jibba iyo qiiro ayaa ku galay marka shidaalkii 12 bilood ee soo socda lagu tamarinayay bishana lagaga shubtaa qofkii ilaahay waafajiyo Allah ina waafajiyo
fawaa'idka bishan bay ka mid tahay u fiirsada qoladiina maqaaxiday mafrashka iyo meelaha waxda ku yara cuncuna waa bisha lagu daaweeyo idmaanka waa maxay waa walaf af Soomaaliga walaf baa la yiraahdaa waxad waaliftoon wad ka helin waan ka waantoobay waa war loo noqon ninka sigaar buu ku walfay jaad buu ku walfay badeecad buu ku walfay balaayo ka daranna inaga daaba oo khamriga wixii la mid ah marka walafka bisha lagu daweeyaa 30 cisho markaad iska dayso sigaarka ee 30 cisho qaadkiya badeecada iska dayso ragaya dumarba badeecada way kaga dhurumsiyaano dumarkaaba u badan qaar ka mid yihiin wad caafimaad oo dhiigaaga balwadaas way ka baxdeen nacas noqon oo dib ha ugu laaban bishan waxa la qabsadaa oo ku sahlanaanaya soomki dad baa laga yaabaa inay isleen warnimayo warmad gaajo u dhimataa 30 cisho miyaa la leeyahay soo taagno oo gaajo lagu waajibiyo la soo lignow markuu soomo maanta berri 10 cisho uu soomaabay soomku waa caadi رمضان بعد ما توح له شوال كان الراعي شوال كنا مودي من نقاشنا مودي من منو نافوبينه وحادي هذا أول قطاع أبتاد بابو هلا يبان نعمدي إلهي الراشق هيا هذا نروح له يسحريني أيامها على سنين تي خميس هل كاسو كسي وضيع مركا يتعود على الصيام صوم كيب لقب سرايا فإذا يك كم يتهاي قفك بخيل كاه gacanta u dabacdo oo nuglaato tareenkii abwaasha ku xidhaaba ka dabca marka ay taawul ala sadaqa la dadku qalbigooda naxariis bisha ka shaayo dadku waxaanay bisha ramadaan bixin jirin ay bixiyaan sadaqadii waajibka ahay reerihi iyo masaariftii loo kordhiyo xaqal ciidkii oo la badiyo iftaaru saa'imkii marka qofkii kolkii hore yara warwareegay isna uu shaydaanku lahaa قسندن يا أكون كان هدية يد دبعسي أنت نروح ساك لا ياعي يسوون الصدقة ولا قب سنة سيدو ساكي ولا قب سنة صدقة دينا ولا قب سنة وحلا قب سنة يا أو وجانا يا إن آياتونك كنا لهند العلوش ولا ليش وهدو يسووا أفركي مركا أي تاجن تهددك أي دقي سنة يا أذان وهذا قارك علوش يسوي ولا ليش وحلا هناك أكباد جائعة غيرك طول السنة أو شو عدانا هاينو لذلك قالوا حجرا أبناء عروض تجارة إياه ملحظة إياه ضد مارتي لحملوا حنا يسكتشروا قذا إياه قراعة إياه عشرة إياه عوافة إياه ساعة إياه وضعهم لقلق ويسود بتاعه إياه لحجري وحسك عراه مركو هلا برناكو سينا يوميا ضانا ضد كنا عاهاي ولي قد بقاتش وحي تاي قونين مركي قاتش وذا محي إنا لله شو بالشدة قيف بقول الكني هايستا والله كواس وحي مدين إن لقى فوتشيو وقول الكان لقى دبعيو مركز سيدا سون حريستي ضدك كلا وكوتشيس تشيسي لها أما والله يابي لها يورن لها ما وحي عنان دي وين محي وحكاوي دينيا كويبون حريسانا أو دبعيا سيدي إذا بنا فوايد كي كميتهاي بهاش النفع إذا بدرده أي كترتا بشري وفوائد كالروحي قال لقى هلو dib oo dhan wuxuu ka yimaadaa dharanka haddaad imika dibirto oo aad karbudho hurdada kugu badanaysa hadalkuna uu kugu badanaya ka joogi kari mayno ilaa qof dhargay uu iskala guraya uu inagu buuqaya markaasuu dhan walba u ridaya uu buuqay buuqiisa inagu badanaya hadalkiisa iyo dhacdaca iyo dhaqlanimada hamadiisuna way badanaysaa waa markuu qofku dhargo hamadiisina badan saddexdaasi hadday yimaadaan hurdo badan iyo hadal badan iyo همد بدنا ده على جاي هذين دناعية حلو ولا كعه وتمرت على مفارقية دناع حلو لكن نفتو مركا الصومية مارنتي قرآن أخرده وشقي السقف هبين كينا عبادة وتاجناده إذا بيانس والقلبتي وفي صدى صلاة عصر كده ساجد كده جيس أفرك كهرنا ده جيس وحوض هذا يبقى أركبيس وشب wax booqaya iyo wax qaylinaya iyo mid quraan akhriya iska ducaysanaya mid iska fikirayo iska aamusano aan inagu buuqay marka waxa soo dhan waxay sheegayaan nafti edab yeelatay inay naftu edab yeelataana arrin aad inoogu muhiim ah weey marka faa'iidooyin aad u badan bay bishan leedahay
faa'iidooyinkaasoo dhan waxa helaya qofku ilaahay bisha waafajiyo ka bishan weydaartana sidaa uu nabigu sheegay walakaasi khayr oo dhan ka calafku ay nabigu sallallahu alayhi wasallam bishan inaad soonto waa ayaan weyn iyo khayr weyn oo aanay haynin maanta walaalaheenii horteen dhintay inaga ilaahay fursad buu ina sii bal adigu dib ugu noqo sanadkii hore dadkii noolaa bal hadda dib faylka u celi oo moobaylkaaga dib u eeg dadka liiska ka baxay ee imika aad dileed garays ama magacoodiiba wali kugu sii jiraa dhintay ama inta gaari dilay lagu sheegay inta kasar dilay inta dabad laga soo qaaday meydkooda ee kal hore inala soomay bal hadda dib ugu noqo yay kula sahlanaan fa'tabiru ya ulil absar maanta cirkaasi carabka la gaari lahayn hadday heli lahaayeen waxa khayrka ah ee maanta yaalla ee bishan ramadaan laga helayo fursadda ilaahay inagu ina siiyay allahu a'lam inaynu dhamaysanayeen kale inaynu gaarayeen kale allahu a'lam haddaynu dhex galanayno dhamaysanayeen dhexdeena layn bisha dhexdeeda layn heli doono ilaahay baa garanaya marka qofka ilaahay waafajiyo bisha nicmo weyn baa ilaahay waafajiyo qofka kalena waa ka gabaday ee oranaya bishan ka dhoof bishan ka seexo bishan ka ciyaar bishan xaaraanta iska cun ilaahay baanu ka baraynaa inuu ummadeena inagaba inoo sakhiro oo inoo waafajiyo bishan khayrkeeda iyo aqbalkeeda waxaana muhiim ah in la iska kaashado qiyaamul layl taraawiixda wax bixinta iyo sadaqada cilmiga camiridiisa casharaa la idin bilaabi doonaaye marka aad soomantay shan arrimood iswaafaji shan cibaado oo mutaraakima isa saara cilmigii oo baranayso salaadii oo aad la imanayso soonkii oo aad soomantay i'tikaaf aad ku jirto oo aad fadhido labada salaadood inta ka dhaxayso iyaduna ajri gaar leh shanta arrimood waa khayr baa ka shubayo account-kaaga midiba dhan kaga soo shubaya ninka hal mushaar qaatay iyo ninka shan mushaar qaatay isku account-koodu camiraad maaha marka casharada ha ka tagin haddaad casharka ka tagtay meel kale tagi mayside maqaaxiyar oo halkana ama mafrish yar u baad ka daldalmaysa bolatiigi iyo qabyaaladii iyo nashuushadii iyo xantii iyo wixii baad wadaysa kolkaasaad macaashkii aad heshay u googo'aya marka waxaagu ha kuu beereeneen casharada camira duruusta fiqiga ah ee cibaadada lagu saxayo soom iyo salaad iyo caqiidada dhagaysta muxaadaraadka aqoonta lagu kobcinayo dhagaysta kuwa ruuxiga ah ee suluuga qofka iyo jibadiisa iyo jacaylkiisa lagu xoojinayo dhagaysta marka sida salaadu u camiranta waanu casharku u camirnaadaa culimadana ha moral jabinina ninbaa la idinku yeedho cashar buu idiin soo diyaariyey masaajidkuna wuu maran yahay hadaas mush sax laysa saxiixan hada khatiib albagdaadi aadaab الطالب كورما وحول حق الفائدة أن تساق لأهلها علمك حقي سوحوي ضرب إلا قد بيوم سنك لقى قلقلين من قارن ربين مركامي ذا وما متساقبه مسجد كوقتي سويان علمك وقتي لقد ضد ذلك يوي كوبا بدأس يكل مدة سان كهر رئيسي لا بل أنت سؤالها إلا سوق قديمي سؤالها ندى كل هدي أي بطين عشان يافرتن سؤالات بهالكي عليه دهوين صوكو كوب إن شاء الله سؤال شيء بالدقيقة بين سين دورنا سيار وقت وساعات نقول لافن وهذا ما أقوله وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته